maalin maalmaha ka mid a Quraysh baa u timid Abu Talib markaas ay ku yiraahdeen adigan iska weynaadee gaboobe inankaad adeerka u tahay maadna kala gaadhida markaasuu yidhi igu yeedha markaas loo yeedhay nabiga calayhi salaatu wassalaam aqalka oo dhan Quraysh baa fadhida yani jabaabira Quraysh oo dhan baa aqalka fadhida Abu Jahl Abu Talib Abu Lahab kullu way fadhiyaan iyo Abu Sufyaan iyo Ikrima waxa fadhiya maaragtana Utba iyo Rabi'a iyo Shayba mujrimiintii Quraysh oo dhan baa fadhida marka Abu Jahl wuxuu arkay meel Nabi Maxamed meel Abu Talib agtiisa ka banaan qof uu fadhiisan karo wuxuu isiri Abu Jahl isla markiiba halka haduu Maxamed uu fadhiisto Abu Talib xaqiisu maray teena qaadan ma yatiisa buu yeelay halkii buu ka fadhiistay markaasuu nabigu soo galay calayhi salaatu wassalaam dadna nabigu markaa albaabku istaagay halkii albaabka ayuu nabigu fadhiistay marka Abu Talib baa hadalka qaato wuxuu yiri kuwani waa waxa weeyaan waa adeerada odayaashii Quraysheed arrinkeenkii hadradan arrinkeen dadkii taladu ay ka go'aysay Makka madaxweyntii waxay ka cabanayaan ana waan iska weynaaday haddii toole waaniga iska buka adigana dib baan kaaga baqayaa inay dib ku soo gaadho anigana dhibaataan qaadi karayn ha ii keenina adeer way ka cabanayaan waxay kaaga cabanayaan aniga ku sheegaya ilaahiyaday caabudayeen baad ka ceebaysay buu qoriyahay caabudayeen bay ilaahay u haystaan iyo dhagaxdii uffin lakum walima ta'budun had ilaahay sukadii aad caabudaysaan iyo inikaba uf baan nidhi nabi Ibrahim alayhi salaam ku yiri qomkiisi lana nabiyadu waxay caalamka u yimaadeen تعلقاً بني آدم كو أي مخلوقة كو تعلق سيهين والشركي إنه كجران بيوي مادين وبني آدم كأي تصان طريقة إله لغا حد ما إله إلا قد وادا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله الله أكبر آلي هادو دي بات كعيبي سيبني آباياشو دي دينتين أهل النار بات كو شاكتي نعم كل من مات على غير الإسلام فهو في النار دين تا إسلام قد دينا نهين قفك كل انتبو نبي يري نار بكو دعي قفكاس أيكينا وحا إليه نوحو نقصو قادي دادان عقل لهين وحباء فهمين مركز دي آدير انتا سيشيغانا يعني هل أدقونا يكا واحد كتابون يسيشيغو ما انتا نيكا لقرنقاي marka Abu Nabigu hadalka qaatay calayhi salaatu wassalaam wuxuu yiri adeer anigu adeerada iyo tolkay iyaka ayaan wax la rabaa iyaka ayaan khayr la doonaya waxaan ugu yeerayaa kelmad kaliya inay ii yiraahdaan hadday kelmadda yiraahdaan arab oo dhanna waxay u noqonayaan boqorro oo madax bay u noqonayaan ajam oo dhanna waxay ka qaadayaan jizyada ka qaadayaan buu yiri wajahal calayhi la'na nin masab ya madaxnimada jecel booha khusaraka wuxuu yiri waylaka 10 marra buu toban jeer baan kelmadda ku celiniye kelmadda ii sheeg buu yiri ma kelmad kaliya ayaan arab oo dhan aan ugu noqonayaa boqorro ajab oo dhan aan kaga qaadaya jizyada ha toban jeer baan ku celinay kelmadda ii sheeg marka Abu Nabigu yiri waa la ilaaha illa Allah wa idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun aj'ala al-alihata ilahan wahida إن هذا لشيء عجاب وقد مدحوا قبصة أبو جهل وحوري صدح بقولي اللحدا إلها ونعبديني أيا باهدة يدي ضبولي كرلا وباهدة يدي قدي كرلا محمد موحى ونقول صوكو بإله كلي عابده صدح بابا باهدة يدي قف الله له صدح بقولي اللحدا إله أجعل الآلهة إلها واحد لأن صدح بقولي اللحدا كان سنة بيس عابديان ميد والبا منفعي كرادينيان هدي الروب دونان ميد بي حولها أقليان هدي أباري لدرس ميد بي حولها أقليان هدو عدو كسودو لميد بي حولها أقليان هدي ويلشو إني ويل الأردشا سنة كأي دونان ميد بي حولها أقليان هدي دوليان عدو قد دوليان قبيل كله ميد بي حولها أقليان هدي عب سودان ميد بي حولها أقليان صدح بقولي اللحدا كالسنب
sanab walba macno gaar u yaka ugu fadhiya maca dalika baahidoodii baa ku filciya ayay haddana dabooli laayihiin makhluuq adu aad samaysatay sidee buu baahidaada u dabooli makhluuq afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu afalaa tadakkaruun waddanka hindiya magaalada Bombay la yidhaahdo qiso cajiiba ka dhacday bari nin ducaada reer Bombay baa noo sheegay nin hinduus oo gaal oo mushrika oo waddanka hindiya u dhashay laakiin Australia ku nool ayaa ninkan muslimkee ganacsadaha xidhiidh baa ka dhaxeeyo badeecadda uu ka iibsan jiray marmar maraakiibta u saari jiray badeecad baa jiray hindiya laga helo Australia aan laga helin badeecadahaasuu markaa intuu ka soo dalbado ayuu lacagtana baanka ugu soo shubi jiray isaguna ama kaargo diyaarad buu u saari jiray ama kontineel marka buu u saari jiray ninkii maalqabeenka ahaa ee reer Australia ahaa ee hindiga gaalka ahaa isagii inantiisii oo jaamiciyada iyo islaantiisii baa Bombay yimid ninkii taajirka ee muslimka ee markaa la kulmeen markaas badeecad buu iibsaday wuxuu yidhi badeecadan tan adaan kaa iibsaday ii soo saar diyaaradda kaargooga lacagtina waa tan alaabtana aniga gaar meel kale uga soo iibsaday iigu dar buu ka yidhi markaasuu yidhi waayadan qaraxyo iyo adduunka waa la cabsoodaa oo qof walba waxa diyaaradda u saaray uu iska eegaa badeecadan aniga aad iga soo iibsatay de anaa kaa iibiyo waan garanoo anaa u qoolan wixii ka yimaada laakiin tan adaa ila yimid maxaa ku jira ii sheeg markaasuu yidhi wax kale kuma jiraan hee ilaahaan caabudaya ku jiro halkan ka iibsaday buu yidhi waa sanab yaroo san dheeroo gacmo badan oo hindiya ay ku dhex sameeyaan oo lacag lagu iibiyo oo fara badan markaasuu yidhi culimmadaydan soo weydiin inay shareecadaydu ii saamaxayso in kale taajir markuu muslim yahay uu iimaan leeyahay tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa ilaahay macrifadiisa tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa maaragtaana inuu shareecadda islaamka ku dhaqmo maxaa bannaan maxaa bannaanayn maxay shareecaddu bannaanaysay maxaase ii bannaanayn wuu soo noqday wuxuu yidhi waxay culimmadaydi igu yidhaahdeen ma bannaano haddaad u qaadid gaalnimadiisii baad ku caawisay waa khatar mana bannaano shareecadda islaamku ma ogolo waana axaadiis saxiixu nebigu sheegay sal alla alay wasalam uu sheegay uu yaabay ninkii war intaa oo sanaan saaxiiba ahaynoon wada mucaamalonaynay maxaad igu qaadi weydeen may ma qaadayo wax kale aniga wax kaloo xalaala haddaad ii keento waan kuu saaray diyaaradda laakiin kan ma qaadayo diintaydaana ii saamaxay inaan kuu qaado gabadhiisii baa markaa inantii uu dhalay baa fikiraysa waa gabadh jaamiciyada habeenkii iyadii aabbaheedii iyo hooyadeed hoteelkii markay ay tageen ayay tidhi aabbo ninkan muslimka intaa oo sanaad la mucaamaloonaysa muxuu inoogu qaadi waayey bay tidhi ilaahayna dee aabba waa diintiisa ogolayna naga daabuudi aabba ra'yi baan ka qabaa bay tidhi halkaas ra'yi baan ka leehay ra'yigaan ka leehay waxa weeyaan bahalkan aan iibsannay kow marka koobaad isagii intuu socdo Australia tagi kari maayo ma socon karaa laba lacag iska bixin kari maayo diyaaradda kursi fadhiisan kari maayo saddex adigii waxaad iga dhaadhicisay oo hooyaday ka dhaadhicisay oo adiga kaa dhaadhicsanna baahideenna kana daboolaya markay dhibaatana qabatay hambarino waxay tidhi ani arrintaasi maskaxdeeda ma galaysay tidhi war kale keen fikirta ninkii muslimkii bay telefonkiisa qabsatay way la hadashay waxay tidhi berito inaan ku arkaan doonaya waayo waa inantii odayga caynkaas ee uu dhalay weeyaan maanta ku timid ee aabaheed la socotay meel buu markaa ku martay qaaday markay u timid wuxuu markaa islaantiisii buu soo kaxaystay oo xijaaban oo gabadh mutadayinada markaas u soo gashay hoteelkii halkaaba gabadhii fadhiisatay waxay tidhi anuu adigaan kula ballameen ruuxan kale kula fadhida maxay tahay wuxuu yidhi ruuxan kale waa xaaskaygii diintayda islaamku iima ogolaanayso inaan adiga kula keliyoobo limaada waan ku geeya adige maxram baad ii tahay maxram iima tihid maxram baad u baahan tahay nebi maxamed baa yidhi ninna naag ajaaniba inuusan la keliyoobin ilaa maxramkeygoo la jooga mooyaane
عليه الصلاة والسلام تانا هرتا قاع بي كتر قلبي جدي الدين بال يا ماشا تعالى وعيت السؤال بانك ويدينا يعني دين تاد هذيك هو محي وإسلام يا ده من سنتها أي شيء الله بنا من سنة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار كعيرك أبورة دوك أبورة مركا هالكي فرصة وحي قلنا قطي إنه ننكي قبل ودعوة السيد إنه يدي هالكي كو إسلامته إنه هوتيلك كو نقط إنه هو يدي أبيه ده كدا دعيس دين الإسلام كا ولا بدي والده دعوة وين أي كو قنعان دين الإسلام كسوق قلان هداية ده مركا ياهي الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو كيد قريش هذا أنو كلمة بان للربا إني مركلي يرادان حتى كلمة أي يرادان هي عرب أودنا مدح بي أنقنيان عرب عجم أودنا جزية كقاضيان كلمة سوى محي ولا إله إلا الله أبا جهل بصرك وحو يري أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب صدح بقولي لحدا إله عابديني أيا باهدا يدي دبولي كرلي محمد موحى ولي متكلي عابدا وارنغا كعيه بودي ماشا إلهيدنا عبادتنا هكو صبرنا مرادك محمد وكليه دين ديسن ku daynayo ka hadhaya ma inay naga mariyo bay dhaadeen markay ka dareereen ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam isagii adeerkii baas ku soo hadhay markaas Abu Talib ayaa yiri adeer hada xumba kuma oranay waa sidee ma inta bay ka didayaan markaas adeer adigu kelmadda mar ii dhabu yiri qiyaamaha ku marxaati furay hal marun adigu ii dhabu yiri kelmaddaas maalin kasta waa u bandhigay adeerkii dacwada sakaraadkii markuu qabtay ayaa la yidhi adeerka Abu Talib baa xanuunsan oo jiifo oo dhacay markaa buu nabigu isku taagay calayhi salaatu wassalaam kolkuu u soo galay Abu Talib wuxuu arkay dhinaca waxa ka fadhiya Abu Jahl yaa uga soo horeeyay Abu Jahl baa uga soo horeeyay siraac xaqqa iyo baadilka wasgarab socdaan la socdo markaa buu nabigu u dhawaaday adeerkii ammi adeer he كلمة نحاج لك بها عند الله يوم القيامة مالك قيامها هنكون مرخات فرع أو هنكون شفاعة قاضي هل مرون كلمة عنك مغشيب كيدي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركاسو ياغي أبو جهل بو ياغي أبا جهل باكويري أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب من ملة عبد المطلب بعد ما أنت كوي عنيسا دينتي أبو ياشن إنتو تكتكتو دينتن عصبه محمد ولي مدي مياد رومين ساود راعيسا هو أمسا هذا النبي قال سوير جيدي صلى الله عليه وسلم أدر كلمة دا مرلا بعد يبيع بوكيدي مرلا بعد هذا هو أمسا هذا أبو جهل بس هو جيدي مركا قدام بيس أبو طالب وحيري على ملة عبد المطلب بان كل انتهى محمد وسككي دا بوكيدي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت كذا ذكوا جعلات النبي قال له يري ما هذين كريس دلالة هذا ولاده الدلالة هداية هذا ولاده وحويان inaad dadka khayrkaad ugu yeedhid inaad kelmadda u bandhigtid inaad u nasteexaysid inaad u damqatid inaad diinta u sheegtid waa shaqadaada adiga weeyaan laakiin qulubtooda annaka haynaba ilaahay leeyahay kaan doona qalbigiisa annaka nuurka iyo hidaayadda qalbigiisa gelinayna kaad jeclaata adigu ma hadaynaysid marka Abu Talib oo Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam adeerkiina هداية النصيب وموسى يلين سلمان وفارسين إلهي وسوهدي أبو لهب والنبي محمد أديرك اللحم ينا هداية النصيب ومو يلين بلال الحبش إلهي تبارك وتعالى وسوهدي يهدي من يشاء كودون إلهي سجهدي